soddon kilomitir markaan soconay baabuurkiina aad iyo aad aan ugu wadnay speed aan caqliga gelin dhagax iyo wax kastana uu ka boodayay ay gaadhay xataa baterigii inuu motoorka gudihiisa ku dhaco oo saa ku socday waanu istaagnay dad baanu soo eegnay waxaanu aragnay meeshaanu soo marray rogol rooba oo aan yani aad iyo aad u xoog roob oo madowgeeda aad yaabayso ayaa ka da-aysay xikmadda aad iyo aad ilaahay nanagu taafurayey wuxuu ahaa roobka isna haddii aanu soo soconay gabalkii wuxuu nagu dhacay markaa xadka meel 25 kilomitir u jiro halkaa markanu 25 kilomitir waxba ma ahayn waxaasna dhaqsaa u gudbaysaa laakiin waa jirtay dad aan meesha kula kulanay oo soomaaliyeed oo markii horena afgaran waayey ujeeddada aanu u soconno dad kaleeta noo maleeyeyna tulna inaanu waa isku ogtoo qabaalka iyo soomaaliyeed ninkaas wuu isku wada diray oo hubbigu isku wada dhiibay marka qolada qabailka uu ka dhex dhigay waxay noo qaateen inaanu nahay qabiilkaa ay qolka yihiin hubka la isugu dhiibay dabata sidii muddo ayaanu doodaynay nimankii aynu isxaqiijinaynay markii arrintaasi noo dhammaatay ayna xaqiiqsadeen inaanu nahay niman u dagaalamaya la dagaalamaya una dagaalamaya dalkooda afweynana la dagaalamaya way naga garabsadeen arrintii waanaan isugu daayay nasiib wanaagsanin markaa waxaan ugu soo gudubnay meeshaan ugu jeednay waanaan soo gaarnay annagoo nabad qabnay annaga hurda la-aan iyo gaajo midna maanaan filgarayn oo maanaan garanayn intaan soo soconay laakiin markii aanu soo gaarnay meesha aanu yani nabadgelyadeedu ku sugnayd waxaan khasab noqotay inaanu sida dhagaxa uga daadano wadadii iyo wixii nagu soo baxaan gaarigii naftiisii markaas markii ugu horreysay saaxiday oo 4 taayirba ayaa meeshii ku banjaray waxaan ku weydiin lahaa Janaal Cali marna ma ka warraysaa wax gurmado ay kasoo daba direen qolada faliska afkiilan ilaa intaas ay socotay intaan soo soconay waxaa dhacday maalin khamiiseed baanu soo baxay waxaanu ku xisaabtanay in jimcahana uu yahay space jaanis aanu la odhan karo wax baxay ma jiraan laakiin maalintii sabtida ayuu bilaabay marka gurmadka inuu amar soo siiyo meelaha oo dhan uu yidhaaho raadiyo oo ka daba dira ciidan taasna amarkaasna dhammaantii waa la soconay waananu ogaanay nasiib daro laakiin waxaa aad iyo aad u nasiib wanaagsan inuu isaguna qaylinayo ooyay halkaa lahaa ilaa nimankaa hala qabto kuwii ugu soo dirayna ay ugu jawaabeen nimankaasi meel soqo ma jooga way tallaabeen waxaanay ku dhow yihiin in halgankoodii hadda ay dhawaan baqaa isagana naxdintaasaa u ah waxaan kaloo ku weydiin lahaa Cali maadaama nin sarkaaloo sare ka ahayd nidaamka aad kana soo aroortay aad ka timi xumaanihii uu sameynayay aad u timina xagga jabhadda maxaa aad ka aragtay markii hore kolley ra'yi gooni aad ka haysatay jabhadda iminkana waa timo waa dhex timi marka sideebaad maxaad ra'yigaagii hore maxaa iska bedelay haddii run ahaan la eego marka ugu horreysa dee aad iyo aad baan ugu farxay inaan ku soo biray jabhadda aad iyo aadna neeftii igu cabursanayd neeftii hawada xorriyadda way isoo gashay markiiba aad iyo aadna waan ugu farxay waxaanan la kulmay waxyaalo aad iyo aad iyaduna iga farxiyey oo fara badan kuwaasoo ay ka mid ahayn dee markii koowaad ayaan arkay gaarigii ugu horreeyey ee iga hor yimid ciidanka jabhadda uu saarnaa waxay nagu qasabtay inaanu joojinno inkastuu ahaa gawaadhidii faqasta laga qabsaday oo noociisatiyaan ahaa waanu joojinay si aanu u aragno iyaga iyo gaariga labadooda waxaan ku dhawaanay raggii aanu meesha kula soconay in ay dhunkadaan gaarigii iyo raggii saarnaan labadooda hadda kaayigana waan dhunkanay kaayigana inuna soo taallaabiy naftiisa waanu ku faraxna waan dhunkanay markaa nimankii waxay yidhahen maxaa noo joojiseen waxaan idin joojinay in aanu idin daawano inaanu idin aragno inaan taariikhda ku qorno markii ugu horeysay inaanu aragno jabhadda ka kamida oo weliba guulo ka keenay aad iyo aad guulo u keenay watana gaadiidkii ummadda soomaaliyeed ugu keenay inuu u adeego laakiin isu rogay inuu ku laayo oo imarka uu saaran yahay ciidan inuu u adeego ummadda soomaaliyeed uu saaran yahay waa si wanaagsan jacay wax kaloo ku weydiin lahaa
haddii aad imika joogto goobihii dagaalka aad aragtana quwaddii jabhadda aad kana war haysay quwadda wuxuu leeyahay taliska Siyaad Barre maxaad u malaynaysaa kulley wax ilaahunbaa og wixii iman doonaan laakiin ra'yigaagu maxaad ka qabtaa sidee bay isu keen hortaagi doonaan markay iska hor yimaadaan ciidanka SNM iyo ciidanka Afweyne maxaad filaysaa waxaan filayaa way cad tahay ciidanka Afweyne moral ku dagaalamana ma laha waayo waa nin layidhi meesha gal oo daafa yani xabadaan fid dilna nin Soomaali oo kaleeto xaqiisii iyo dalkiisii ku dagaalamaya marka ciidan aan fahamsanayn qadiyadiisa aan fahamsanayn wuxuu u dagaalamayo aqligana ku haysta kaliya inuu nin kursiga ummadda Soomaaliyeed 20 sanadood kaga fadhiyay sabab la'aan uu uga fadhiyay laynayana isla markii inuu keligii ninkaa kursigiisa u dagaalamayo ninkaas niyadiisii markiisa waa qaar dhaqaaqo marka waxaan qabaa ama aan practically horaba yani arkayba horena intii aan ka maqnaan laga sheekeynay ama warka ku helay shanta daqiiqo inaan la sayn meesha goobtii kasteel isugu yimaadaba waayo ciidana xaq ku daray ciidana dulmi iyo qadar ay ku dagaalamay marka inaan ku guuleysan doono oo sidii hore ay u guuleysan jireen annaguna aan sii kordhin doono oo xoog u guuleysan doono insha Allah saasay noqon doontaa kadib su'aal dumisaan weydiiyay Janaal Cali waxa weeyaan maadaama tahay nin madaxo dadkuna ay ka dambeeyaan dhalinyarada iyo dadka ummadda Soomaaliyeed ee guud ahaanba maxaad fari lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada guud ahaan waxaan fari lahaa marka ugu horeysa niyaddoodii adkayd ee ay ku dagaalamayeen inay halkii ka sii halgankanina wuxuu marayaa marxaladdii ugu dambeysay taasoo ah dhowrkii magaalo meesha jiray hadduu ku xarooday awooddiisna noqotay inuu kuwaasun daafac karo inta uga hadhay waa waxay dhowr saacadood oo dagaal ayaa inoo hadhay dhowr sannadood inooma hadhay dhowrkaa saacadood ee dagaalka inoo hadhay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee halkan degan weyn iyo ta Soomaaliyeed ee nagu soo birtay iyo inta nagu soo birtay karta dambaba waxba ma mudna in laga guuleysto waxay u baahan tahay keliya عزيمة iyo adkaysi waxay u baahan tahay keliya fahmid qadiyadda uu dagaalamo weliba uu qofku aad u sii fahmo oo ay ka baxaan waxyaalahan yaryara ah waa markiiba weerar baan qaaday weerarkii aan qaaday dib yara dheeraado markaa waa ka nasanaya ama reerkiiba yara gaadhaya ama geeliba iga haraadan oo soo waraabinaya intaynu waxaasoo dhan yara joojino oo meel dhiganno 3 saacadood oo dagaala oo keliya inoo haday 3 saacadood oo dagaalka aynu ku dagaalanno si casiimo waana dhammaanaysaa insha allah حق الضمية Somali National Army iyo qofkii loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed in lagu daafacdo laguna isticmaalay in lagu laayo ummadda Soomaaliyeed sawirka dadka ay arkaysaan waa Janaal Cali Xuseen oo jecelahay fursadan diyaaradda dhacday halkaan aan taaganahay in yar ka ilaahdo xaqiijinaysaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ugu geystay ninkaasi aanaleyda qofka caanaha keena ummadda Soomaaliyeed hantidii laga qaaday oo loogu talagalay in lagu daafaco sidoo isaguna ugu talagalay inuu ummadiisii ku laayo taasi waa sawir buuxa oo tusaale ka bixinaya nidaamku siduu adeegsaday cashuurtii ummadda Soomaaliyeed laga qaadayay in iyada dib loogu celiyo hub la soo gashado dadna diyaaradaha saa loogu laayo diyaaraddan waxay ku dhacday Hargeysa u jirtaa qiyaastii 12 kilomitir si dalanbaad oo u dhacday ragga dul taagtaagna ragga mujaahidiinta